إلى هذا برنامج كان عصام دونا هدي أو عفوا أو هذا عصام دونا حصة ما كنت ماشي تكون هدي إلى هذا تراوي هالكلا هذا يوالد كهرباء وحاربنا إن كفر جرينه برنامج أنا سويت لقلنا مانتا إن هالكم كسمينه أو لما أنت إن كفر جرينه هدي إلى هذا البدن مجرو وحاربنا عاوة إن قرصتور سمينه وعياري سومال ويك أفتر رمضان إن شاء الله 2016 oo bilaaban doono July 23keeda 22keeda 24keeda ilaa iyo 31 ka soconay schedule-keeda ayaan sameeynaa waxaan ka soo qayb gali doonaa 12 kooxood ayaa ka soo qayb galaya 12 kooxood ka soo qayb gali doona hadii ilaa yiraahdo saddex waxay ka imaanayaan Europe ayay ka imaanayaan saddexna waxay ka imaanayaan Mareykanka ka imaanayaan saddexna waa Toronto saddexna waa nawaaxiga hadii ilaa yiraahdo marka waa Windsor iyo Kitchener iyo Ottawa marka waa 12 kaas kooxood waaye barnaamijkeena ayaan bilaaban doonaa hadii ilaa yiraahdo waxaan u yeerayaa marka ugu horeyso in uu maadaama Ramadaan ay tahay in uu xogaa yar oo wacdi aan siino Professor Towane inuu noo furo barnaamijka wacdi noogu furo maadaama Ramadaan ay tahay خيركنا أنصفرنا دي إلى إرادة بروفيسور توغنا وحملنا كسودو. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وسلامة المسلمين تيسو سلامان. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه. صدق الله العظيم. waxaan rabaa inaan idin sheegno bishan kulligeen waa ognahay Ramadaan baan ku jirnaa maalmaha Ilaahay waxa ugu fiican Jumca al-Jumca al-Mubaaraka la yiraahdaa bilooyinkana waxa ugu fadli badan bisha Ramadaan Ilaah Quraanku ku sheegay magaceeda shahru Ramadaan alladhi unzila fihi al-Qur'an nabigeena alayhi salaam wuxuu yiri Ramadaanka awwaluhu baraka wa wasatuhu maghfirah وآخره عتق من النار مرك هو الرئيس وإله ودب الدفاع نهاية وحوي عتق من النار مرك إله هرتها النجدجو الذين يعتقون من النار وحنكرون يدين شيء هيا سيدا عن الشيء هذا الك إنه كل هذا مربو لكن أرين مهمة أيان الشيء هيا وحوي قرآن ك آيات برو بأنا خيرنو أنكو أنا كفر سن أياجرة مثلا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وحكوحك واعتصموا قبصدا بحبل الله حرق إله واعتصموا بحبل الله جميعا دمانتين ولا تفرقوا هنكل تجنا واذكروا والحسوست أي إلهي نعمة الله عليكم إله نعمده إذن سيي إذ كنتم أعداء مركا أيضا ضد إسنعب وحكاها الله يا قبل الإسلام عربت أنت الإسلام نقولين أعداء إسلام سيئات فأصبحتم واحد نقطتين بنعمته إخوانا نعمة الإسلام باولا لكم نقطتين مركا هذا أنك إلهي ضد مسلمين أيانا الصوماليا وحا أي هيسته ومد هيسته مجرد وحانا شعب لغة واحدة اسكو أفقه اسكو دينه
isku madhab ah xataa nasiib wanaag ma qabno sunno iyo shiica ma qabno khilaaf weyn oo ku dhex yaalla male marka wuxuuna ilaahay xasuusinayaa dadka wadkuruu xasuusta id kuntum acdaa'an dad isnacab cadow isku abaahadeen waxaa la sheegahayaa al-ansaar aws iyo khasraj 30 sano isdilahayeen wadkuruu id kuntum acdaa'an faallafa bayna quluubikum ilaah baa qalbiyadiinna isu keenay fa asbaxtum binicmatihi ikhwaana nicmada ilaah waxaad ku noqoteen walaalo marka ilaahay waxaan ka baryaynaa an yu'allifa bayna quluubina horta quluubteen ilaahay isu keeno waxaanan ku xirahayaa sida la sheegay dad badan baa iga horeeya duca ayaa jirta quraanka ku jirta rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman ilaahu annaka noo dambi dhaaf ikhwanuna alladhina sabaquna bil iman kuwi iimaanka noogu horeeya muslimiinta ilaahu u dambi dhaaf wala taj'al hana yeelin fi qulubina qalbigayaga غلا حقد إيه حاسدني هجلين للذين آمنوا كو إله كربي مرك ولا ليالو أن إسجعلانو ما في أنا نين مسلم أو نين كله أما النعب أما خلاف وجرا ولا خلاف هيا خلاف هو اللي جه شنكرا مرك خلاف اللي جه شيو وحول بويا جاج هيا مرك إلهي وحنكبري هيا أن نؤلف بين قلوبنا إنه رقبتنا سكانه ويجعلنا إخوانا متحابين ولا لا إسجعلنا الله ونقدره والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه ما سنتها جزاك الله خير. مرة بعد أسكسون قلنا إيد كلوغ على الجوجا وحنا هدرتان ربع إن أو سي معركتي قام فرنا ودوكسو دويو لما أنتين كسوق بكشين قدوميها عيارة أحمد عبد الكريم عنتر أو جوجو عنتر وحنا لنا كسو دو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ورت إلهي سبحانه وتعالى ما هذا إسكاله إنتنا الجمعية إنتنا الجعليسية عيارها إنتنا حدان سكدو بنو وحن أمسنا إن أمد صومالية تهور مري كرنو أنا سكو قلبي نغنو أنا سلا قرنو وح أنا سلا فيرنو ودودي كرنا وكويشين كرنا وح حمانا مجرو إلهي وجهي سلا كدان سكو إيمانو وح كستوا إنه هجاجا waxaan leeyahay bil ramadaan mubaarakan leeyahay waa maalin aad u fiican waa jecleen inaan jumcada ka dhigno sidoo professor Tagano noo yiri laakiin kastoo duruufna waa iska jira waxaan waa isla leenahay shalay waa qabanay adduunka oo dhan laga amaanay cantar amaan gooniya ma qaadan qof amaan qaatay male annagoo dhan reer Torana iskale ninkeena ugu weyn iyo ninkeena ugu yar marka haddana gacmaha isku sii dhigno inta ay ka fiican sameyn karnaa waa bedeli karnaa caloosha aan soo furno aan soo dhawaano wixii nin kasta ra'yigiisa qoontiisa way jirtaa waa iskhilaafi karaa laakiin waa heshiin karnaa sidoo sheekha noo sheegay marka aan dadaalna wax yar aan ku darno aan qurxino sanadkan aan ka sii qurux badnaan siino 12 kooxood aad dheelayso marka yaa la isdhiin raga haysto wax la haysta male meeshan open way qof kasta u furantay Soomaaliya annagoo dhana isla ninkii gooni asaga isu siinaya si ilaahigiisa laakiin annaga umad waxaan nahay muslimiin haddaan daacadnahay waxaan waa ka wada shaqeyn karnaa wax fiicanna u qaban karnaa mujtamaca marka manigu dheeraanay ramadaan way dadkana way ka dambeeyaa marka waxaan leeyahay welcome aan soo dhaweyno sidaan shalay u soo dhaweynay sidaan wax u qabanay dadkeena ugu fiican iyo kuweena maartay qaldana ta gacmaan qabanayna wajiidayna marka qofna ma tilmaamayno qofna magaciisa ma sheegayno kulligeen waa isla leenahay aan shaqada isla qabanno aan isla wadno nin laga leeyahay ma jiro ilaahay magaciisa ku dhaartay wallahi billahi taala qof laga leeyahay male aan walaalowno aan mid noqono assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh aad iyo aad ay u mahadsantahay Axmed Cabdikariin waxaan rabaa wax yar inaan dhowr kalmadood inaan xusno waxqabadka bahweynta Cantar waxqabadka bahweynta sportska magaalada Toronto iyo odayaasheeda inaan wax yar ka taabto dii oo Ilaahay yiraahdo horta Ilaah baa mahad leh waxaan nasiib aad iyo aad u leenahay haddii aan reer Toronto inaan intaanoo odayaala oo maaragtay sports ah
hadday noqon lahayd dhinac maamul, hadday noqon lahayd ciyaartooy, hadday noqon lahayd macallinimo coach, hadday noqon lahayd tababare, wax walbo ilaah baa horta hibad noo siiyay haddaan reer Toronto inaan ka faa'iidaysanana xaq baan u leenahay. dadka noo imaanayo iyo magaca aan maaragtay nologu imaanayana waa magacyadiina waay intiinan meesha fadhiso waay dadka soo dhaweeyay intiinan meesha fadhiso waay dadka last year waxay dadku u yimaadeen intiina inay arkaan anaga facilitation kun baan haynay shaqadun baan qabanayna ma haynay dadka la rabay in maaragtay loo yimid oo la rabay inay arkaan asxaabtooda iyo ciyaartooda idinka waay marka mar kastoo magaaladan ama qof ciyaartooy yimaado ama tournament la qabanayo la yimaadana waxa loo imaanayo annaga ma koo waxa loo imaanayaa idinka labo waxa loo imaanayaa dadka Toronto degan oo dhan dadka Toronto degan oo dhan markii yiraahdo annaga waa soo galeynaa Toronto aan degannahay laakiin markay noqoto magac iyo sports iyo wixii markay noqoto waa la kala mudan yahay marka meel oo maaragtay intaanoo qofood oo maaragtay sports magac ku leh sportska Soomaaliyeed magac ku leh maanta geeska gees haddii oo meel ay wada joogaan waxa waaye ayaga un baa loo imaanaya marka waxaan leenahay aad iyo aad ayaa u mahadsantihiin intiinaan odayaasha ah oo maaragtay ka soo wada qayb galay barnaamijkan dhammaantiin aad iyo aad ayaa u mahadsantihiin barnaamijkan aad maaragtay caawa aan samaynayno oo qorskultuurka ka soo qayb gasheen waa wada afur doona haddii ilaahay yiraahdo waxa kale aan rabay inaan wax yar ka taabto kolayba uma soo istaagin inaan ururka wax qabadkiisa badankood ka hadlo barka waa la socotiin wax qabadkiisa ururka waa urur maaragtay ka madax bannaan siyaasad waa urur ka madax bannaan waxyaabaha maaragtay la isku haysto waa urur ka madax bannaan waa urur loogu talagalay in lagu horumariyo sportska iyo dhalinyarada bulshada iyo hidaha iyo dhaqanka in lagu horumariyo haddii ilaahay yiraahdo barnaamij waxaan soo wadnaa maadaama reer Toronto aan nahay aan hor u dhac idinku sii sheegaynaa maalinta 23 haddii ilaahay yiraahdo waxaan rabnaa ciyaaraha inaan bilaawno Friday oo ah 22 inaan intaan la fariisano oo aan maaragtay casuumaad ahaan aan u wada fidino marka geemka hadii la galo waqti xun laga soo baxaya 10:30 11 10:30 10:45 laga soo wada baxaya marka time ma la helayo marka wixina waa isaareeyeen marka maalintaas waxaan rabnaa inaan ka wada faa'iideysano dhammaanteen festivalkaas iyo soo dhaweyntii inaan maalintaas oo aan ugu magac darno si maaragtay flyerskeedana aan soo dhajino markii aan barnaamijka helno haddii ilaahay yiraahdo barnaamijkan mar dhow insha Allah weekend gudihiisa waa heleynaa insha Allah laakiin waxaan idinku sheegayaa barnaamij noocaas inuu jiro oo noo imaan doono ayaa idinku sii sheegayaa tan kale ciyaarihii hadda waa xoogaa ayaan dhexdaas dhibaatooyin badan oo waxaan galnay garoonka ahaa saawada la wada socotiin dhammaantiin last year maahna wixii ka horreeyay waxa waaye waxaan ku wada ciyaari jirnay bannaanka ku ciyaari jirnay sababta keentana wax kala ma ahayn waxa waaye gaaladan Soomaaliya u tahay doesn't matter hadda 6 community kala tahay hadda 7 tahay iyo hadda 2 tahay hadda 3 tahay Soomaaliya u tahay garoonkii wax alla wixii dhibaato ka dhacay dad maaragtay shaqaale ahaa lagu abuse gareey sigaar lagu cabay dagaal ka dhacay garoonkii waxyaabihii isbartiibada ka dhacay the last 10 15 years dad kale ha sameeyaan ama anaga aan sameeyno wixii dhan madaxna laga saaro waxay gaartay ilaa aan la fadhiisano mayorka oo aan dhahno okay tan waa qaadanaynaa laakiin there is one condition anaga aan leenahay any other dad kale oo Soomaali ah haddii aad garoonkaas ka ijaartaan ayaga la xisaabtamaysaan anaga ahaanna lama xisaabtamaysaan Soomaali waa aslanahay laakiin mas'uuliyad qof kale ma qaadi karo anaga magaceena waxa la yiraahdaa Toronto Development Association of Youth oo markii la soo gaabiyo today ah wax alla wixii magacaas ah oo garoon aan ku qabsano responsibility anaga ka ah wixii inta ka baxsan responsibilitygaas ma qaadi karno marka waxay gaartay in la ganaaxo ilaa iyo 3 sano way noo soo dhamaatay last year waataan ku ciyaarnay garoonka maadaama maaragtay garoonka waqti badan uu helin this year garoonka ku wada ciyaarayna halkaas maalin oo Friday-da oo aan rabnay inaan maaragtay soo horumarino because waxaan rabnaa semi final inaan kala qaadnaan rabnaa marka odayaal imaanayo odayaasha inaan dhaxgelinaan rabnaa marka maalintaas 22 ah inaan bilaawno 23 barnaamijkeena kale oo maaragtay oo festivalka aan wadno ciyaaraha marka say Centennial Park saan u aadno insha Allah waxaan ku dhameystanaynaa Centennial Park aan ku dhameystanaynaa
next year haddii ilaa yidhahdana waxaan last year wixii dhacay keliya ayaa waxayna gaarsiisay in oo 3 koox ugu yaraan 3 waxaa ahayd 5 koox ayaa codsi soo dirsatay oo Yurub ka imaanaysa 5tii koox hal waa cudur daarteen halna waxaan dhahnay boss meedi hayno because nimankan ciyaartooyda Yurub ka imaanaya waa imaanayna kaliya team lagu qaabili karo haddii aanan conditional lagu xirin marka conditionada ugu horeeyay aan ku xirnay waxay ahayd ama reservation hotel oo inta aad ka qabsateen waqtigaas la bilaabay noo soo dira ama confirmation ticket inaad tigidhkiina goostay noo soo dira marka waxaan sameynay first come first service saddexdii ugu horeysay oo confirmationka tigidhkii iyo hotelka soo direen saddexdii ayaan qaadanay marka waxaa ku jiro team oo la yiraahdo Olympia 808 oo wado nin aan wada taqaaniin Maxamed Xaaji oo ahaa garsoore oo degan Birmingham ay degan yihiin oo UK ah kooxna waxaa la yiraahdaa Jubba waa Jubba FC waxaa wadaan Islaawi iyo Muridi ayaa wadaan Murid Abanur ayaa wadaan waa kooxdii ugu dambeysay Sweden Cup ka soo qaaday kooxda saddexaad oo aan qaabilnay waxa waaye North London ayagana waxa waaye groupka Islaawi waa ayagana Cabdi Axmed iyo groupkaas wado marka waxaan hadda hadalkaas ku keenay waxa waaye next year haddii ilaahay yiraahdo wixii waa sii ballaaranaya maadaama last year la arkay in maaragtay sumcaddii magaaladan xoogaa ay soo noqonayso ayaa waxay keentay in kooxo badan oo Yurub ka imaanaya inay soo codsadaan inay ka soo qayb galaan marka maadaama hadda aan 3 ka qaabilnay Yurub I'm sure very much tomorrow haddii ilaahay yiraahdo ama next year inay ka badan doonaan ay noqon doonaan 5 ama 6 marka martidii day after day waa sii badanaysaa haddii ilaahay yiraahdo garoonka maalmihiisii wuu sii badanayaa haddii ilaahay yiraahdo marka kolleyba waxa kaliya aan sugayno ama aan filayno waa idinka inaad martida maaragtay oo noo wada imaanayso magaciina ku imaanaya inaad nala soo dhaweysaan kasoo qaybgalka aad kasoo wada qabasheen dhammaantiina waa mahadsantihiin waxaan bilaabaynaa haddeertaan barnaamijkii aan halkan u nimid oo ahaa inaan 12kaas koox inaan maaragtay qoratuur u samayno ayaan bilaabaynaa haddii ilaahay yiraahdo si mar alla markii intaan ku wada afuraynaa dhammaanteen mar alla markaan afurno maaragtay imaan salaad taraawiix iyo howlo badan la leeyahay inaan maaragtay waa ugu talagalnay afurka markii la gaaro oo la afuro inaan la daahin oo la baxso that's why barnaamijkan u gabagabeynayna marka groupka oo noo qaabilsan waxay sameeyeen maadaama 3 koox ay Toronto tahay 3 koox oo Toronto iyo 3 team oo Mareykanka iyo 3 team oo ah nawaaxiga oo ah Ottawa Windsor iyo Kitchener marka sidaas ayaa u yeerayaa inay soo istaagaan ay qaataan warqadaha halkan yaallo ay qaataan kadibna qof walba warqaduu qaato idinkoo u wada jeedo halkan lagu wada qoraya haddii ilaahay yiraahdo marka ugu horeysa waxaan u yeerayaa 4 koox oo kala ah waxaan u yeerayaa Kitchener iyo Hilaac iyo Banaadir iyo Seef aan u wada yeerayaa afartooda mid aan ugu wacaya afartan xaansha halkan yaallo ayay qof walba nasiibkiis qaadanaya qof walba wuxuu qaatan halkan lagu qoray waxa ugu horeeya aan u wacayaa waxa waaye Seef FC oo matalayo kabtanka Liibaan number 10 waxaa ku xiga oo yeerayaa horta nambaro waaye yaa fiir schedule-ka yaa lagu wareerayaa waxa waaye numbersna waa loo sameeyey explanationkeeda ayagaa bixinaa marka hore aan samayno waxaan u yeero Banaadir FC haddii joogaa Banaadir FC Anwar kabtanka saddexda mid qaado fur adile furo numberkaaga sheeg number 1 Hilaac FC Hilaac daahir macna daahir ما تنقاض من قاض حبط قاض خلاص من قاض نمبر 7 1 2 3 4 5 6 7
waxaan u yeerayaa haddii ay joogaan maamulka Kitchener kana ku hare fur numberkaaga arkaysaa sheeg number 4 okay 1 2 3 4 okay waxaan hadda aan wacaynaa u yeeraynaa 4 koox 3 koox oo Mareykanka iyo Windsor 4 ku ah maadaama aysan nala joogin waxaan u yeeraynaa qof un ha u qaado waxaan jeclaan lahaa inaan miiskan saaro inaan saaro oo 4 waaye oo hal qof uu qaado waxaan rabaa Minnesota Twin City Cabdiraxmaan u qaad afartan qof hal xaba ka bix Twin City number 5 intaan wadana ya odaasheen inta fadhiya waa Ohio FC Minnesota Tigers waxaa qaadayo adeer Minnesota Tigers numberka Minnesota Tigers number 2 Minnesota Tigers number 2 Minnesota Tigers number 2 numberka leh 11 oo Windsor ah 11 oo Windsor ah okay kan waa dhamaaday raalli hada wixii explanation anaga hadhowtii sameynayno kooxda Olympia 808 from Birmingham UK adal maxaan faarax u qaad Birmingham Olympia 808 FC numberkeeda 12 okay Juba FC UK Juba FC UK number 3 North London Stars number 9 North London Stars number 9 North London Stars 9 waxaa ugu dambeeyo oo salaad hayo number 6 oo ah Ottawa FC